Axmed Madoobe waxaa la soo doortay 2013 May waxaana lagu soo doortay gacmo taag 70 jir farta ka xiran waa doorashada madaxweynaha maamulka Jubbaland oo maanta ka dhacday xarunta jaamacadda Kismaayo ee uu shirku ka socday ayaa waxaa ku guuleystay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kala ahayd cod qarsoodi ah iyo mid gacan taaga waxaan jeclahay waqti ugu horeeyo anagoo ciidamadii guryaha waagulayno howlgaladii diyaarinayno wax kaloo talaabo qaadinaa isagoo wada ciro leh dhibaatada ka muuqata kaartooyin wuxuu adeegsadaa kala duwan oo kaartaba ay ka khatarsan tahay ayuu la yimaadaa waxaan u malaynayaa magaalada Kismaayo waxaan soo galay Oktoobar 1 sanadkii 2012 laga soo bilaabo waqtigaas waxaad moodaysaa sawaxan iyo qayladhaan inay ka jirtay Muqdisho madaxweyne walba oo yimaadana wuxuu ku khasbanaanaa inuu adiga ku tanasulo baarlamaankii Soomaaliya oo aan ognahay maanta su'aasha cid waliba weydiinaysa inay tahay war 2016 maxaad qabanaysaa 2016 maxaa idin yaala muxuu noqonayaa dariiqa looga gudbayo shaqada u taala intay la egtay aan garanayno in shaqadii baarlamaanku ay ku soo urursato oo ay noqoto mooshin ka qaad mooshin u guur yani wax mooshin la yiraahdo kan mooshin ka keen kan mooshin uga guur kan mooshin ka waxa weeye waa qisa aan fahmi karin xaqiiqahan shaqada u taala iyo waxa la iskaga waxaynaya aan garanayn waxaan garan lahay inay garan laayihiin Jubbaland ma baarlamaanka federaalka dhisay ma isaga dhulka u xoreeyay ma iyaga shirarka u qabtay ma iyaga mooshin ku sareeyay iyo constitution bay ku dhisan yihiin Jubbaland constitution bay ku dhisan tahay Puntland constitution bay ku dhisan tahay Koonfur Galbeed constitution bay ku dhisan tahay kuwa dhaxal la dhisay iyo kuwa la dhisi doonana constitution bay ku wada dhisan yihiin baarlamaanku ma dhigteed garaynay mana waxaynay waxaan aad u garan lahay inay ahmaqnimada shaqada ay leeyihiin intay garan waayaan inay isdaba wareegiyo ka bixiraayihiin mooshin waa sharaf daro in ka loo tanasulo wuxuu asaga raba ninkan la suubiyo speakerkii baarlamaanka Soomaaliya hadduu qoys matalo yuuna lugoyn dadka ha ku ekaado qoyska uu matalo iyo meeshuu doonayo haddii laakiin gudoomiye baarlamaan uu yahay Soomaali uu yahay waxay la tahay ha ilaaliyo dastuurka iyo constitutionka uu kor taagan yahay madaxweynaha waxaan leeyahay waa oday Soomaaliyeed aad buu u dadaalaya laakiin quraanka oo dhan baan aqaanaa yaa ka akhrisan baa ka adag in uu dalkan wuxuu meesha u fadhiyo Kenyatta wax kala ma waa in madaxweyne walba yimaado ama hogaam walba ama dawlad walba dalkan ka dhisnaat in ay jajabiyaan ay baabiyaan madaxweynuhu wuxuu ku soo koobay inuu isku koobo sheegasho hal gobol iyo hal degmo oo Soomaaliya kamida oo degmo kamida gobolka Gedo oo kuraas ay taalo oo yiraahdo aniga u baa ka talinaya